madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo ka hadlayay maanta bandhig carwo caafimaad oo lagu qabtay hoteelka Maasoor ee magaalada Hargeysa ayaa waxa uu si qoto dheer uga hadlay muranka ka taagan dhinaca doorashooyinka Somaliland. madaxweynuhu waxa uu wax lala yaabo ku tilmaamay hadalka ka soo yeedhay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ee la xidhiidha diidmada arrintaasi dhinaca doorashooyinka la xidhiidha. maalmahan waxaa maqlintay waxan badan oo xisbiga ka socday mucaaradka gaar ahaan xisbiga wadani wuxuu ku dacweeyey sharciga la jabiyey raaci mayna go'aanka baarlamaanka soo baxay darteeda sharciga laga deeday madaxweynaha marorsaday kartaa ma ogolin waa caadi qofku hadduu wax todo inuu sheegto laba qodob bay sheegteen mid waxay lahayd komishanka cusub la doortay la shaqaynayno waayo madaxweynuhu wuxuu jabiyey heshiiska xisbiyada xalaal iftiin baa la qashaa xisbiyada waa heshiiyey haddii qodobka ay ku dooday waxay dhahdeen waxay xisbiyadu ku heshiiyeen inaan xubnihii hore ee komishanka lagu soo celin kuwa damba laga dhigay haddii qodobkaasoo qoraala ay hayaan oo lagu heshiiyey anigu mana saxeeyo qodobkaa mana ogi kuman inaan heshiinin oo ma jiraan leeyahay hadday hayaan ummadda oo soo bandhigan inaanu qodobkaa ku heshiiyin anaga ka daran haddaanu jirin oo aan laga heshiinin dee wax wanaagsan ummadda markaa doonaysa wax xun u sheeg qodobkaa laguma heshiiyey waxaa lagu heshiiyey in la soo doorto xubnada cusub sababta loogu dari waayo kuwa hore ayaan lagu soo celinaa waa sharci aanaan dhaaf karin haddaanu xisbiyada nahay ayaa yaalla xeerka komishanka qodobkiisa 12aad faqradda 4 waxay leedahay muddada komishanku waa 5 sannadood waana loo cusboonaysiin karaa marka waqtigu ka dhamaado xubnaha haddii loo baahdo yaa saxeexay waxaa saxeexay mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi gudoomiyaha xisbiga qaranka wadani gudoomiyaheenii hore oo baarlamaanka oo haddana ah xubin ka tirsan guddida gurtiga waa ixtiraamayna saxiixiisi waa la raacaya isagaa saxeexay mudane gudoomiye cabdiraxmaan ummadda u soo bandhig labadaa qodob hadday wax ka jiraan wax ka soo celi ee turxaan la-aan waayo xalaal iftiin baa la qashaa in dadka la jahwareeyey baha qodobka oo baxa qodobka labaad waxa uu yidhi runtaa annagaa diidda haddaan wadanahay lagu dari maayo ama xubnaha haddii lagu darana doorasho geli mayno waxa daba socotoo lagu eedeeyey madaxweynuhu talo uu murarsadaa waa kadiitanis talo ma ogola bal amuurta ilaahay haddana waa qodob isu keenaaga sharcigii uu isagu saxeexay komishanka qodobka 12aad waxay ahayd laba waxaa soo jeedinaya guurtiga mid waxaa soo jeedinaya xisbiga wadani midna wicid saddexana madaxweynaha cid waliba way soo qortay kuweygii midna arrintiisa waa faragelin xisbiga wadani ku keena waan gudbiyey wicid ku keena waan gudbiyey guurta labadina waan gudbiyey saddexdii aniga ila noqotana waan ku daray waxaa jira shuruudo lagu qiyaaso haddaan qaldamo anugu oona ma u bareero anoo dantay riixinaya ama binaadaan qaldamada waxa iga dambeeya laba isbaaro guddida hoose baarlamaanka iyo gudaweynaha baarlamaanka oo 28 qof waa la gudbiyey intiiba waa mareen waa doodeen wadani inay arrintaas qalad tahay guddidii baarlamaanka way sii daysay baarlamaankina wuu celiyey yeeri maynu wadani yidhi diktaatoorida ka weyn baarlamaanka yeeri maayo xaggee lagu arkay cabdiraxmaan ayaa ka filayay inuu wanaagsan oo shibir hayo qodob joojiya taa laga filayay mudane cabdiraxmaan adoo gudoomiyihii baarlamaanka ugu weynaa saxeexada ee dalka 10 sano sharciga u saxeexayay adoo gudoomiyaha xisbiga wadaniga qaran ah adoo xildhibaan guurta sharafeeda milkiye maamuus ku leh dee arrintaa ka fiirsan yeeri maayo baarlamaanku waa arrin adag. madaxweynaha Somaliland waxa uu eedihii ugu culusaa u jeediyey madaxweynaha dowladda Soomaaliya oo uu ku eedeeyay inuu ammaan darro ka wado maamul goboleedada dalkaasi. arrintaasi madaxweynuhu waxa uu hoosta ka xariiqay inuu ku soo wado waa sida hadalka uu u dhigay Somaliland kismaayo dagaal baa ka socda xamar dagaal baa ka socda oo dowladda farmaajo labadii madaxweyne ku xigay maalmo way xidha waad arkaysaa halka la isla maraayo iyo qarax ka taagan uu samarad dagaal baa ka socda puntland dowladda soo wata maanta la qarxiyey waxaana wadada dowladda farmaajo ee waxa soo taageerayay ayaa fidmadaas oo dhawada oo markay intaasoo dhan ka dagaalamaysa waxay ka wadaa way waxaas waa tababar
booga kusoo tababaranaysa oo kusoo diyaargaroobaysaa somaliland bay soo diyaartaa colaadeeda oo ku soo maqanta somalilandna waa ku gaamurtay inay cadowgeeda iska celiso diyaar baarano waa aragnaa waxa soo wada farmaajo batri koosar maxamuud telefishinka sahan hargeysa